qarax khasaare nafeed geystay oo ay ka badbaadeen qaar ka tirsan ciidamada AMISOM ayaa ka dhacay wadada Maka al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho. Warbixinta waxaa noo soo dirtay Xamdi Maxamed Xasan. qaraxan oo la sheegay inuu ku xirnaa gaari nooca raaxada ah ee loo yaqaan Kaarib ayaa ku qarxay wadada Maka al-Mukarrama xilli ay wadada isticmaalayeen gawaarida ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM. warar iskhilaafsan ayaa sheegaya in gaariga xilliga uu qarxayay uu wadada isticmaalayay inkastoo aan la arag qofkii kaxeynaya gaariga. dad goobjoogayaal ayaa sidoo kale sheegay in gaariga wadada hareerihiisa uu yaalay intii uusan qarxin. intii la og yahay 3 qof ayaa ku geeriyootay ku dhawaad 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen oo dhammaantood ahaa dad rayida oo qaarkood goobo ganacsi ku lahaa hareeraha laamiga. sidoo kale ciidamadii lala eegtay qaraxa wax khasaare ah kama uusan gaarin. taliyaha waaxda dambi baarista dowladda Soomaaliya Generaal Cabdullaahi Xasan Bariise oo soo gaaray goobta uu qarax ka dhacay ayaa faahfaahin ka bixiyay sida ay wax u dhaceen. goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa durbadii waxaa isku gadaamay ciidamada dowladda Soomaaliya iyadoona si rasmi ah loo ogeyn cid ka dambaysa qaraxani. hayeeshee dowladda Soomaaliya ayaa ku eedeysay xarakada al-shabaab oo dhowr hore qaraxyo kala duwan ka geysatay goobaha ay dowladdu maamusho. Xamdi Maxamed Xasan, Somali Channel, Muqdisho.